miyaad ogtahay in dalka Ivory Coast uu hadda yahay suuqa ugu weyn ee tahay in ganacsatada Soomaalida ay Kenya u guuraan? Dhawaan waxaan daawaday wareysi dahabi ah oo uu soo saaray janaalka Faisal Shah kaas oo dhex maray danjiraha Kenya u fadhiya Ivory Coast. An area that I want to encourage you to go and speak your Somali language. Horta marka hore qof kasta wuxuu isweydiinayaa Ivory Coast maxaa yaal. Danjiro wuxuu sheegay in dalkan yahay meel ay degan yihiin hay'ado waaweyn oo caalami ah sida Bangiga Horumarinta Afrika. Danjiro wuxuu si cad u sheegay in dalkaasi ay ka jiraan fursado waaweyn oo tartankoodu yar yahay. Wuxuu danjiruhu sidoo kale dhahay dadka Soomaaliyeed waa inay sidii oo kale ka bilaabaan ganacsiyo iyo guryo magaalada Abidjan ee dalka Ivory Coast. Saddexda meelood ee lacagta ugu badan laga sameyn karo danjiruhu sheegay waa ganacsiga sida hoteelada, maqaayadaha, macdanta, iskuulada Islaamiga ah. Ivory Coast waxaa degan bulsho weyn oo muslimiin ah oo u baahan waxbarasho diin oo tayeysan. Waa fursad weyn oo furan. Sidoo kale waxbarashada maadooyinka sayniska iyo luqadda Ingiriiska waa fursad kale oo dahabi ah ka jira waddankaas sidoo danjiruhu sheegay.